Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. Muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa masaajida ugu quruxda badan ee caalamka. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalka. Masjidka Sheikh Zayed. Masjidkani waxaa lagu tilmaamaa masaajida ugu weyn dalka Imaaraadka, waana mid ka mid ah masaajida ugu quruxda badan ee caalamka. Masjidkani dhisidiisa waxa ay bilaabatay 1996. Dhismaha masjidkani waxaa lagu kharash gareeyay 2,455 dirham. Dhisida masjidkani waxa ay socotay 12 sano. Masjidkani waxaa ku tukan karaan 40,000 oo qofood. Masjidka Xasan Ali Thani. Masjidkani wuxuu ku yaalaa dalka Maghrib, khaasatan Casablanca. Masjidkani waxaa lagu tilmaamaa masaajida ugu weyn Maghrib, waxaana amray in masjidka la dhiso Xasan Ali Thani sanadka markuu ahaa 1986. Dhismihiisana wuxa uu socday 7 sano, waxaana ku tukan karaan in ka badan 25,000 oo qofood. Masjidka Malik Faisal. Masjidkani wuxuu ku yaalaa Bakistan, khaasatan caasimadda Islamabad, waxaana lagu tilmaamaa mid ka mid ah masaajida ugu weyn caalamka. Dhisida masjidkani waxaa ka dambeeyay Malik Faisal markuu booqday Bakistan sanadka markuu ahaa 1966. Sanadkaasi waxaa la sameeyay tartan, midkaas oo ay kasoo qayb galeen injineero kuwaasoo kasoo kala jeedo 17 dal, waxaana meeshaasi lagu soo bandhigay naqshado kala duwan, balse waxaa la doortay naqshada uu leeyahay injineerka kasoo jeeda Turkiya, kaasoo lagu magacaabo Wadaac Dalkay. Dhismaha masaajidkani waxa uu dhammaaday sanadka markuu ahaa 1986. Haddana masjidkani waa mid ka mid ah masaajida ugu weyn dalka Bakistan. Masjidka Al Aqsa waa mid ka mid ah masaajida ugu weyn ee caalamka, waana masaajid taariikh weyn ku leh Islaamka, waana qibladii ugu horeysay ee Islaamka. Midda labaadna waa Kacbada ee aan hadda u tukanno. Masjidkani wuxuu ku yaalaa Falastiin, khaasatan caasimadda Qudus, waxaana balaciisa lagu qiyaasaa 144 kiiloomitir oo afargees ah. Wuxuuna masjidkani ku caan yahay qubbadda dahabiga ah ee ku taalo dhex bartamaha masaajidka Qudus, waxaana maalinta Jimcaha ku tuktaan dumarka, balse qubbadan dahabiga kuma eke, balse wuxuu kaloo leeyahay qubbad kale taasoo ku taalo dhanka koonfureed ee masjidka. Masjidka Al-Jimca. Masjidkani wuxuu ku yaalaa magaalada Hirota, khaasatan koonfur galbeed Afghanistan, waana mid ka mid ah masaajida ugu weyn ee caalamka. Masjidkani waxaa dhisay Taymuuriyiinta, waxaana dib habeyn ku sameeyay Safawiyiinta, waxaana lagu tilmaamaa mid ka mid ah masaajida ugu weyn Hirota. Masjidkani bilowgiisa waxaa dhisay ninka lagu magacaabo Qiyaas-Zingi sanadka hijriyada markuu ahaa 597. Markuu dhintana waxaa sii dhammaystiray walaalkiisa Maxamed Quuri. Masjidka Suldaan waa mid ka mid ah masaajida ugu weyn ee Suldaan Qaabus bin Saciid oo amray in la dhiso intuu xukumayay, wuxuuna masjidkani ku yaalaa dhex bartamaha magaalada Masqat ee dalka Cumaan, waxaana dhex bartamaha loogu dhisay si ay dadka ugu fududaato in ay dadka ugu kala yimaadaan meelo dhaadheer. Masjidkani wuxuu deeqayaa 6,500 oo qof, banaankan waxaa ku tukan karaan ilaa iyo 8,000 oo qof. Masjidkani wuxuu u samaysan yahay qaab qurux badan, waxaana dhisay injineerka lagu magacaabo Maxamed Saalax, waxaana masjidkani lagu dhisay muddo dhan 6 sano. Masjidkani wuxuu leeyahay qubbad midaasoo dhulka u jirto 50 mitir. Masjidka Saalix. Masjidkani wuxuu ku yaalaa dalka Yemen, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay masaajida ugu weyn ee Yemen. Masjidkan dhisidiisa waxa ay qaadatay 8 sano, waxaana ku baxday lacag dhan 1 bilyan oo dollar, wuxuuna deeqayaa 45,000 oo qof, waxaana ku yaala kulliyad lagu barto culuumta Qur'aanka. Masjidka Cubuudiyya. Masjidkani wuxuu ku yaalaa Malaysia. Masjidkani waxaa lagu tilmaamaa masaajida ugu quruxda badan ee Malaysia marka loo eego qaabka loo dhisay, waxaana amray in masjidka la dhiso Suldaan Birig Idriis, waxaana la dhisay masjidkan 1917 miilaadiga. Masjidka Jaamac. Masjidkani wuxuu ku yaalaa Hindiya, khaasatan Hyderabad, waxaana lagu tilmaamaa masaajida ugu weyn Hindiya, waxaana amray masjidkani in la dhiso Imbaraadoriyadda Shah Jahan. Masjidkani wuxuu deeqayaa 25,000 oo qof, wuxuuna leeyahay 3 albaab iyo barxad weyn, waxaana ku taalo barkad weyn midaasoo lagu weyse qaato, wuxuuna leeyahay 2 minaaradood.
Masjidka Cumar Ali Seyfuddin masjidkani wuxuu ku yaalaa caasimadda Brunei. Masjidkani waxaa la dhisay sanadka markuu ahaa 1958. Masjidkani waxaa lagu tilmaamaa masaajidda ugu muhiimsan ee Brunei. Masjidkani waxaa lagu dhisay meel u dhow badda, agagaarkiisana waxaa ka muuqda biyaha badda. Waana masjid aad u qurux badan marka loo eego habka loo dhisay. Haatan waxaan soo gaarnay dhammaadka fiidiyowga. Haddaba waxaa muhiim ah inaan sala ogaano mid. Muhiimaddan muuqaalkan u hadlayna maahan inay masaajidda kala sarraysiino ama quruxdooda aan ku qiimeyno. Muhiimaddu waxa ay tahay inaan ku kala barno masaajidda caalamka ku yaalo. Haddaba waxaan rajeynayaa inaad intaas fahantay. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh channelka si dhiirigelin ay noogu noqoto. Intaan kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa kale waxaan idin leeyahay